بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرشادة علمية كمبيوترka qaybtiisa basic ahi waa qaybteeni basic computerka MS Access ee barnaamijka database ahay. Cashirka koowaad waxaan ku soo aragnay sida loo sameeyo table. Cashirka labaadna query. Cashirka saddexaad maanta form ayaan ku arki doonaa. Kan ugu dambeeya afraadna waxaan noqon ka doonaa report. Okay. Formka kan ugu fudud waaye form inaad samaysid waxaa kaaga baahan tahay hal shardi waa inaad marka koowaad yani select ku samaysid tableka markaa ku samaysid kadibna create aad aadid create markaad aadidna click form aad ku siisid waa ii soo baxay marka student name-kii roll number-kii galaaska waa ka inta ka geli kartaa for example qofka koowaad ilaa afraad ay ugu register-san qofka labaad waa ka xogtiisi qofka saddexaad waa ka qofka afraad waa ka new one waa geli kartaa okay marka form waa kana saas ku sameeyaan hadaanatid marka column-kani waxa ku bedeli kartaa waxa ku dardari kartaa ku baashar marka adiga just waa lagu tusinaya bis waa form sida loo sameeyo okay yes sida caadada noo ahayd form noogu qor halkan form halkan u yimid formna waa kana queryna waa kaasa tablena waa kaasa marka inaan isla fahnay ayaan rajaynaa queryga naftigiisa ay register-garay isku day hilmaamin barnaamijka xawaaladeedka inaad samaysid ama barnaamij kaleeto oo adiga aad ku salaysid yani baahidaada ama shaqadaada adigoo isticmaalanayo table form query and form adoo isticmaalayo marka access markii hadalka lagu dhahayo marka waxa waaye database waaye maxbaa lagu shubtaa xogta daatada oo muwaadinka ardayga ama shaqaalaha lagu shubtaa markii la hayo indhaha ku arkaysaa magarat intaasna waa ku ekeynaa waa wayno cashirka afraad ee reportiga aad baa umahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu